fanaanka weyne Soomaaliyeed Kaynaan Warsame ayaa isagu waxa uu booqasho maanta soo booqday madxafka hidaha iyo dhaqanka ee ku yaala magaalada Minneapolis runtii iyadoo jaaliyada Soomaaliyeed aad ugu faraxsanaayeen booqashada uu ku yimid madxafka ayaa haddana waxa halkaas ku soo dhaweeyay madaxa madxafka hidaha iyo dhaqanka ee magaalada Minneapolis Mudane Cismaan Cali fanaanka oo runtii inta uu booqanayay madxafka hidaha iyo dhaqanka ay ku abuurtay farxad iyo xasuustii dhaqankii Soomaaliyeed ee qaaliga ahaa waxa uu muuqday sida tan by your grammar the child is going to be proud of that and say hey actually this used to belong to my mom she's in Somalia oh mashallah she takes you back the milk in it I took it from her mashallah you see the smell. Yeah, it takes me right back. Yeah. I love it. Yeah. Mashallah. I mean, you know, for me, it's history, you know, it takes me directly back to. Because all that we use. And that's fake spells when they're dancing like a shirk. They use this kind of spells, you know. Right. But here's the real one. That's real ones. Well, for a lot of them will really work, right? Yeah. Props, okay? I'll call Mark. Here we have the religion section. This is how they learn the Quran. This is the wooden tablets. They learn the Quran with it. Yeah. This is how they used to learn. They write the Quran here on this wooden tablet. Once they get memorized, then they erase it and wash it, and they start off a new lesson. So everything there's no notebooks. They keep it for next month or two. They revise it. They have to memorize. We study Argeg Tahit. It's Argeg. The tree that they make this out of it is called Argeg. This is like 120 years old. Somalis believe if you use this one and wash your hand and face, you'll never get blind. ugu dambeyntii ayaa fanaanka Kaynaan Axmed Warsame waxa uu booqday aqal Soomaaliga quruxda badan ee ku dhex yaala madxafka hidaha iyo dhaqanka ee magaalada Minneapolis runtii taas oo isaga oo ka hadlaya sheegayna in ay tahay xusuus lama iloobaana waxa ereyadiisii kamid ahaa aan sidaan ku roonayn markay saan ahayd runtii markay sidaan ahayd horta aad ugu mahadsantahay hawsha aad qabateen hawl culus aad qabateen ma sha Allah dhaqankiiban rabnayna soo celino dadku aanay oran dadkan xagee ka yimaadeen we came from here ma sha Allah this is the master room bakuna master room keegi baadi das caruurtuna halkan ay seexataa maamada iyo ciyaalka yaryarna xagaas ay seexdaan hawl wanaagsan ma sha Allah qofba meel hawsha ka wadaa moogtahay inaad marka waxa weeye ma sha Allah weeyaan keeping maaragtay dhaqankeeni that meel aan tagi karno that we can see and smell dadkeeni sidaan ahayn qofka waxa weeye dadku hadday maqan yihiin wax badan marmar inay soo xasuustaan aad wanaagsan marka ma sha Allah waxaan baleenaynaa adigana keenaan Soomaalinimadaada iyo sidaad noogu soo booqatay museumka maadaama aad adiguna calankiisa sidana alaabtii dhaqanka hoos wadna calanka ma sha Allah that's the way ma sha Allah haddaba waxa Somali Cable iyo Somali TV State of Minnesota noo suurta gashay in aanu markaasi weydiino socdaalkiisa shaqo oo muddada dheer uu halkan u joogay waxyaabihii uu qabsoomay iyo iyada oo ay soo baxayaan warar sheegaya in musalsalkiisii movie-ga ahaa rally ay ka noqdeen City of Minneapolis iyo guud ahaan jaaliyada Soomaaliyeed haddaba arintaasi iyo booqashada aad ku timid madxafka hidaha iyo dhaqanka magaalada Minneapolis Kaynaan Cabdi Warsame sida kuugu muuqatay ma sha Allah horta waxa weeye meel oo caraftii iyo dalkii iyo wixii aad maaragtay anoo yar aan ku xasuustay maanta inaan ka heli karo Minnesota dhexdeeda waxa weeye waxaba aan u doortay Minnesota inaan musalsalka aan sameynayo aan ka sameeyo marka ma sha Allah hawshan si fiican u socotaa dadka Soomaalida aad bay noo soo dhaweeyeen dawladana meeshan aad bay noo soo dhaweeyeen waxa aan u dagaalaynana waxa weeye dadkeena iyo imagekeena inaan maaragtay meel fiican dad adduunka ka tusno
waa hagaag markaa hawshaadii musalsalkaagii runtii dadka dhinac fiican bay ka eegeen dadkana qaarkoodna si kaleeto ayay ugu muuqatay maxaan kaa qornaayood u sheegaysaa sida uu musalsalkaagu muxuu ka turjumayaa Minneapolis Muqdisho horta hadda ninka Amiin Caamir camal artistka haddii intuusan qadda soo qaadan la yiraahdo war maxaad qori doontaa hadduu ninka intuusan gabiyin la yiraahdo war maxaad dhihi doontaa soo ajaa'ib maaha marka waxa weeye musalsal hadday tahay waxa waa in la qoro la duubo soo maaha marka waxaasaan ka shaqaynayaa hadda aniga marka intaasaan mashquul ku ahay waanan arkay maaragtay dhinaca kale dad leh ama laga yaabaa inuu si xun nooga hadlo waxaanan sida hadda ka hor aan u iri waxa weeye qofka waxa looga bartay aa laga sugaa marka anigana alxamdulilah la igama baran inaan diin caay iyo dad caay la igama baran mana aha maanta inaan bilaabi doono waxa weeye dadka saas u arkayana waxa weeye walaalkiinaan ahay Soomaalinimaduna waa ugu weyn tahay adinkaana idin dagaalaya insha Allah adinkaana arki doona inta ka horeysana waxa weeye qofka hadduu muslim yahay waxa waaye inaa meesha fiican aad ka aragto marka taasaan idin weydiinaya insha Allah ugu dambeyntii jaaliyadda Soomaaliyeed ee State of Minnesota ayaa waxaanu idinka codsanaynaa inaad garab istaagtaan waa geesigii huwaday calankii Soomaaliya xilli la filayay inuu calamo kaleeto uu qaato Kaynaan Cabdi Warsame garab istaaga isaguna waxa uu mar walba idin muujinayaa taageerada iyo jacaylka uu hayo dalkiisa Kaynaan mar kale dadkaaga iyo dalkaaga ku soo dhawow thank you